bismillahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subaxa ee warbaahinta xulka wararka qodobada aan idiin hayna waxaa kamid noqonaya dowladda soomaaliya ayaa waxay ka jawaabtay codsi dowladda kenya usoo dirtay waxaana ku gacan seertay dalabkii dowladda kenya. ciidamada xasan cali kheyre ayaa waxay xabsiga u taxaabeen ilaalada sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo macalin maxamuud. sababtu maxay tahay waan idiin soo gudbinayaa xilli maalinta beritaha lagu wado in magaaladaas uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha degadeganaa dowlad goboleedka galmudug. faahfaahin dheeraad waxay kasoo baxayaan dad xalay lagu dilay magaalada muqdisho. dadkaasi maxay yihiin waan idinla wadaagi doonaa xilli laamaha ammaanku ay sheegayaan in amniga magaalada muqdisho maalmahan dambe uu sii hagaagayo. xasan daahir aweys wadaadka xabsiga ugu jira dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay ama uu war kasoo saaray hadal dhowaan kasoo yeeray taliyihii hore nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi sanbalolshi. muxuu yiri waan idinla wadaagi doonaa qodobada ee daawantoodna saaxiiba taarikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha 9 Sebtembar 2019. diyaar garooba saaxiibayaal daawashada qodobadeed maqashada faahfaahsan channelkan xulka wararka subscribe dhaasi aad heshaan warar iyo warbixinada raali geliya. aynu ku bilownay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay ku gacan seertay dalabkii dowladda kenya ee ahaa in dib loo dhigo dacwadda taala maxkamadda caalamiga ee ICJ taasoo furmaysa 9 bisha 9 ee sanadkan. dowladda soomaaliya waxay ku gacan seertay codsiga kenya oo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ugu dalbatay in la hakiyo dhageysiga dacwadda ee badda u dhexeeysa Soomaaliya iyo Kenya. xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ayaa warqad rasmi ah u diray waaxda codsiga Kenya cudurdaar ayuu sheegay inay muujiyeen dowladda Kenya waxay ku cudur daaranaysaa in aysan haysanin qareeno difaaca. hase yeeshee dowladda federaalk Soomaaliya waxay diiday codsiga Kenya waxaana la filayaa in berito ay warqad rasmi ah u dirto maxkamadda ICJ kuna wargeliso go-aankeeda iyo inay diyaar u tahay inay kiiskaasi dacwadda ay Soomaaliya ka qayb gasho. Soomaaliya ayaa ku doodi doonta in hadalkii Kenya ay dooneyso inay qareeno cusub qorato oo ay haysato in ka badan 1 sano oo ay sidaasi ku sameysato. sidaa darteedna cudurdaar rasmi ah aanan iminka la aqbali karin oo aysan Kenya haysanin. dhageysiga dacwadda ayaa waxaa la qorsheynayaa inuu dhaco maalinta Isniinta ah ee Jimcadu taariikhdu ay tahay 9 bisha ilaa 13 Sebtembar ay socon doontaan. go-aan kasta oo dib loogu dhigayo kiiskan dacwadda ama lagu joojinayo waa inay isku raacaan labada dhinac oo ay maxkamaddu qusayso. haddii ay sidaa dhici weyso oo hal dhinac kaliya ay doodu ka timaado waxay maxkamaddu dooda u qabanaysaa dowladda halkaasi xaadir ku ahi. dhammaan dalka Kenya waxaa si weyn looga hadalhayaa hadalkani dowladda Kenya u dirtay dowladda federaalk Soomaaliya iyo qaabka Soomaaliya ay ugu celisay wakaaladaha caalamiga ah iyo TV-yada ayaa waxay tabinayaan halista kaga imaan karta Kenya haddii ay ka qayb galaan doodaasi inay weyn doonaan biyaha lagu muransan yahay ee Soomaaliya iyo Kenya ay isku hayaan. ciidamada xasan cali kheyre waxay xabsiga u taxaabeen ilaalada sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo macalin maxamuud. waxaana la sheegayaa ama lagu waday maalinta beritaha magaalada dhuusamareeb uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka galmudug. ciidamada ilaalada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya xasan cali kheyre ayaa figeeyay isla markaana muddo saacadaha xiray askar ilaala u heeday madaxa xukuumadda galmudug iyo hogaamiyaha ahlusunna wal jamaaca macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan. arrintan ayaa ka dhacday madaxtooyada magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana ka dhashay dood badan oo aad looga hadalhayo magaalada. arrintan ayaa waxa ay saabtay kadib markii hogaamiyaha ahlusunna macalin maxamuud iyo madaxa xukuumadda sheekh maxamed shaakir cali xasan ay damceen inay galaan madaxtooyada galmudug si ay kulan ula yeeshaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaana ilaalada lagu amray inay hub ka dhigaan oo aysan hub la geli karin halka uu joogo xasan cali kheyre waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. sheekh maxamed shaakir iyo macalin maxamuud ayaa u galay ra-iisul wasaaraha waxaana la qaateen kulan gaar ah iyagoo ku dhawaaqay ama sheegayba inay wax walba isla qaban doonaan. ilaalada ayaa markaasi laga adeegtay oo la figeeyay. labadan hogaamiye ayaa marka hore waxa ay si caadi ah u wateen ilaalo gaar ah oo ay la galaan halka
ay damcaan oo ra-iisul wasaaraha jooga ama madaxweynaha jooga hase yeeshee maanta arrintaasi waa la diiday oo ilaalada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa gaashaanka u daruuray waxayna figeeyeen askartii ilaalada u heday sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo macalin maxamuud waalka xabsiga uu jira dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ka hadlay hadal dhawaan kasoo yeeray cabdullaahi sanbalolshe kaasi oo ahaa in awood qeybsiga beelaha intii ay jirto ama dalkan lagu maamulayo uusan gaari karin in qabiil laga tago. Waxa uuna goobaabiyey sanbalolshe in qabiilka si weyn loogu dhaqmo. Waa kana sidoo ka hadlaya xasan daahir aweys hadalkii sanbalolshe kasoo yeeray. tan kale waxa weeyaan ninka la yiraahdo sanbalolshe inta aan ku haysto waxyaalo badan oo hadda maartay iska dabiici oo jiro oo fiqina oo ka hadlay oo qabyaaladan inuu dawladdu ku dhisan tahay aniguna hadda koor wax badan aan ka hadlay waa jirtaa waxyaalahan oo bahalkii maxay ahaydeen 0.5 iyo waxaan maartay iyagana waxyaalahan aniguna aan ka soo horjeedo waa ku jirtaa laakiin hadda waa wax waaqic ah oo yani ummad ahaan hadda oo jiro waay wax jiro waay laakiin mas'alada hadda oo waxaas uu ka hadlay laakiin waxa aan ku haystaa waxa weeyaan هذا الوحيري خطرة وأنت أو مالكي محوها سوماليلاند أي كلاجة كينايو سنت شرباب ما كلاجة بحنايو وحاس مارته وإن هويوه أي مارته كرسي أي كوفة ديان وركان كويس تاكاسوا وركان كويس تاكاسوا ولا لو يعني صدّن سنة سو ماشي سو جوجني صدّن سنة سو جوجني ماشي وكان جاري ويني مخاطات كتاي وقان جاري وين حتى مركي رجع يجي مارتي محكمته أي مارتي أي خطي عجارنا يوحي تورنا أي ربور كيفرن أو حتى بدفاع عن ويدين العدو بيوصل انتهى عن محمد جدي وقرن يسوي قشن كايو ليش اللي له رد هذيك يا هاي عبد الله يوسف حتى أسوق صاري كيس سوق صاري حتى شو موجود والروحانية هو مارتي مارتي هذه أمتك لما مركا إلا فيريو شو عقله مكانه ذاتي قانجاري ويده إلى هالديرات مارتي عاد مقدشو الذي مقدشو قدر كده صدر ثلاث جوكتين محو هجاجي ويده مثلا حق عقارن يبلايو مارتي أدلح جوكتين محو هجاجي ويده إذا كمان بحسني وحوي وادي كمان هاي لكن معناه وحن لا هاي وحوي وحن كهنيسين ولا يلا كفير صد رنتي واكو قدرية ما تبالك محمد سنبلوشي واكو قدرية لكن ولا لو قاعد وحن صح معها دي وحن ضد بمير هاد بيلا لا وما انت انترنت كي واحد كجيره وقرنايا وحس مركه وحويان ومدوا وحال الروا وحي هداد مارتي وحقبن وينين إنها مارتي وحي وحقبنايو مارتي أوروب بنيايو سومالي دي مارتي لفيريا على الأقل أنا واقبا سومالي دي نسكال روني يعني مال قبيل كليو جوج عليك وركيد معي مال قبيل كليو جوج ما كهلايو أو مارتي بونتي لاني سومال لاني قبيلة جوجا واحد قبيل جوجا قبيل وإسحالين كلا واحد مشكلة بما لكن ماشي اللي ود الجوجو مشكلة ضتهاي تسوى قرنا هاي وهذا قبيل سومالي ومالها واسكم دواي لكن وحن ديدا يا إن قبيل لو تعصبوه ولا يراد وين يك ماشي مارتي أي جوجان ما فايدة كوكنتي رئيس الصومالي إنه تعبر وصل حرم مقالة الوسماريم أسكر dhawaan lagu biiriyay ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya kuwaasoo ah Ahlusunna wal Jamaa waxa uu kula dardaarmay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka dalka waxa uuna sheegay inay yihiin ciidamadii dalkani iyo dadkan difaaci lahaa waxaa halkaasi ka jeediyay khudbad dhinaca badan taabanaysa guud ahaan warka ka dabaraysan warbaahinta xulka warka saaxiibayaal waa naga intaas ma dhaafno